بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan xukuumadda Netanyahu oo toos digin ugu jeediyey Mareykanka arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli madmadow uu soo dhex galay Netanyahu iyo Trump kaasi oo la xiriira heshiiska Mareykanka uu la galay Iran madaxweyne Donald Trump ayaa shaaciyey in khubaro Amerikaan ah oo kormeerayaal ah ay qayb ka noqon doonaan howlaha kormeerka hay'adda xakamaynta nuclearka ee IAEA ay ku samaynayso xarumaha nuclearka ee wadanka Iran laakiin wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadanka Iran ayaa waxa uu sheegay inaysan xilligan dhoweyn in la ogolaado goobahaasi in la galo walow xabajoojin la gaaray haddana Israa'iil weerar kale ayay galabta ku qaaday koonfurta Lebanon dhimasho dhaawac ayaa halkaasi laga soo warinayaa guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub oo soo saaray waxa uu ku cadeeyay in ciidamada Israa'iil si bareer ah ay u tooganayaan carruurta Falastiiniyiinta dalka Shiinaha waxa dacwad lagu soo oogay mas'uul sare oo ka tirsan waaxda warshadaha difaaca iyo barnaamijka hawada sare arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkan dalka Shiinaha ugaarsi lagu hayo mas'uuliyadda lagu eedeynaya musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed maxmud cadde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in baarayaal Mareykan ay ku biiri doonaan baarayaasha hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan faafreebka hubka nuclearka ee IAEA si loola socdo kaabayaasha nuclearka Iran sida laga soo xigtay hadalla uu warbaahinta Mareykanka madaxweynaha u sheegay Trump ayaa sidoo kale sheegay in Iran ay ogolaatay in kormeer lagu sameeyo nuclearkeeda taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xiriirinayo in barnaamijkeeda nuclearka lala socdo si kastoo ay tahay waxa uu tilmaamay ma jirta buu yiri hawl degdeg ah oo la xiriirta in kormeerayaasha ay Iran tagayaan hadalladan ayaa soo baxaya iyadoo ay socdaan in bartilmaameed laga dhiganayo howlaha barnaamijka nuclearka ee wadanka Iran iyo dadaalada la rabo in si furfuran oo la xaqiijin karo loola socdo barnaamijka nuclearka ee wadanka Iran iyadoo iskaashi lala yeelanayo hay'adda caalamiga ee faafreebta hubka sida baahsan wax u gamaaday ee IAEA markii horeysay Iran ayaa waxa ay si xoog leh meesha uga saartay in kormeerayaasha caalamiga ee IAEA loo ogolaan doono kaabayaasheeda nuclearka iyo agabka nuclearka ee waxyeelada ay ku gaartay duqeynta xagga cirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay u geysteen waxaana intaas lagu daray in arrintaasi laga wada hadli doono heshiiska kama dambaysta ah kadib dowladda Mareykanka markay qaado tillaabooyinka loo baahan yahay ee dhammaan cunaqabataynta looga qaaday wadanka Iran ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha cadaaladda iyo xiriirka caalamiga Qasim Garibabadi ayaa hadalkan ku qoray bartiisa X wuxuuna sheegayaa in kormeerayaasha caalamiga ah iyo dowladda Mareykanka warka ay soo saareen inay iskaashi la yeelanayaan wadanka Iran ee la xiriira xagga kormeerka in uu yahay arrinka badbadisa markay ugu yaraato 2 qof ayaa lagu dilay diyaarad drone ah oo Israa'iil ay ku weerartay koonfurta Lebanon sida laga soo xiganayo warbaahinta rasmiga ah ee wakaaladda wararka ee wadanka Lebanon wakaaladda ayaa sidoo kale ku waramaysa in weerarkaas lala bartilmaameedsaday baabuur ku safrayay wadada aada Talad al-Dabsha ee ku dhow tuulada Kafar Reman ee deegaanka la yiraahdo Badeetha wax faahfaahin ah oo la xiriira arrintaasi ma ay soo bixin oo la xiriira haybta iyo magacyada dadka dhibaatadu ay gaartay iyo xaaladaha ku geedaaman weerarkaasi iyadoo xukuumadda Israa'iilna ayna wax hadal ka soo saarin arrintaasi la sheegay Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu shaqo badan ka qaban doono wadanka Lebanon wuxuuna ku nuuxsaday in Israa'iil ay rabto in deegaan
hubka ka cagan ay ka abuurtay koonfurta Lubnaan si ay uga hor istaagto ururka Xisbullah inay weeraro ka dhana Israa'iil ay soo qaado. isagoo la hadlayay kulan goboleed looga hadlayay arrimaha amniga ayaa Netanyahu waxa uu sheegay Israa'iil inay howlo badan oo Iiraan ka dhana qabteen welina ay ka go'an tahay inay Iiraan ka hor istaagaan inay yeelato hub nukliyeera. sidoo kale waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay khatar ku tahay jiritaanka Israa'iil. Iiraan marnaba ma yeelan doonto hub nukliyeera intaan anigu ra'iisul wasaaraha ahay ayuu yiri Netanyahu, wuxuuna ku celiyay fikirkiisii muddada dheer iyo mowqifkii muddada dheer oo ahaa in Iiraan ay u hanqaltaagayso in hub nukliyeera samaysato. hay-adda qaramada midoobay ama golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha guddi gaar ah ay magacaabeen oo baaritaan ku sameynaya dhulka Falastiiniyiinta ayaa ku eedeynaya Israa'iil inay si ola kaca caruurta marinka Gaza u toogtaan. waxayna mar kale ku celiyeen eedeymo la xiriirin militariga Israa'iil howlgaladooda oo u dhigan yahay dambiyo dagaal iyo falal xasuuqa. warbixintan oo talaadadii la soo saaray ayaa guddigani waxay ku sheegeen caruurta inay 30% ka yihiin dadka Falastiiniyiinta ee la dilay xilligii uu socday dagaalka ka dhanka ah marinka Gaza laga soo bilaabo Oktoobar 2023 ilaa Oktoobar 2025. waxaana hoosta laga xariiqay caruurta dhibanayaasha inay tiradooda kor u dhaafayso 20,000. intaa waxaa dheer caruurta ku maqan burburka hoostiisa oo weli laayahay. sidoo kale hay-addu waxa ay sheegtay xaddiga xadgudubka bini'aadanimo oo ay caruurta ugu horeeyaan marinka Gaza ka dhacay ayaa waxay tahay waxaan hore loo arag. waxaana warbixinta ay ku nuuxnuuxsatay in macluumaadka ay ururiyeen uu yahay xadgudub ka dhina qawaaniinta caalamiga ah iyo dhammaan xeerarka xuquuqda aadanaha. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ku-xigeenka madaxa maamulka warshadaha dowladda ee waddanka Shiinaha iyo maamulka howlaha cirbixiyaanada Ben Zingang ayaa baaritaan lagu wadaa. waxaa looga shaki qabaa inuu xadgudub ku sameeyey xeerarkii iyo maamulkii. waxaana la xisaabtamaya hay-adda u qaabilsan musuqmaasuqa waddanka Shiinaha ayaa hadda waxa uu ku guda jiraa ole ka dhan ah musuqmaasuqa oo uu bilaabay madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping. waxaana la arkay dad fara badan oo saraakiila oo ay jenaraal ku jiraan oo la baarayo, qaarkoodna jagooyinka laga qaaday. bishii lasoo dhaafay 2 jenaraal oo hore oga ahaan jiray wasiirada gaashaandhigga ayaa lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii 2 sanadood baaritaan lagu waday oo lagu soo oogay dambiye ah musuqmaasuq. hay-adda ku shaqada leh warshadaha difaaca oo madaxda ka Ben ayaa waxaa la sheegay in ay muddo dheer ku howlanaayeen agabka casriga ee difaaca ee waddanka Shiinaha. waxaana si rasmi ah maamulka uu u hoostagaa hay-adda sayniska iyo tiknoolajiyada iyo warshadaha ee difaaca qaranka. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashana waa ay mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa gordhow faraqaynta wararka iyo wixii warah ee degdega ee soo kordha. ha yeeshee aynu ku hakano qadar xayeysiin. dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. sheekada ku saabsan wasiirka Israa'iiliga ah oo digniinta siinaya Mareykanka intaanan u gudbin, aynu eegno khubarada Iiraan waxa ay ka tiri arrimaha maamulka marinka Hormuuz iyo in dib sidii si hore uusan ugu laaban doonin marinkaasi. maxaa loola jeedaa maxamed ereygaas? Dr. Xasan Axmediyaan oo khabiir ku ah arrimaha Iiraan ayaa waxa uu sheegayaa in marinka Hormuuz uu ku noqdo sidii uu hore u ahaan jiray ayaa waxay tahay arrin aanan suuragal ahayn. marka la fiiriyo buu leeyahay in maraakiib fara badan oo caalami ah ay bilo badan halkaasi ku xaniban yihiin. wuxuuna tilmaamay in is-afgaradka ku-meel gaarka ee Mareykanka iyo Iiraan lagu qabtay 30 maalmood in lagu soo afjaro in marinkaasi si habsamiya loo maro. maraakiibtuna ay gaaraan sidii hore u ahaan jireen inayna suuragal noqonin. Iiraan ayaa ku gacan seertay in wixii dagaalka ka horeeyay sida Axmediyaan uu hadalka u dhigayo in loo maamulo ama loo isticmaalo marinka Hormuuz xaggiisa amniga
oo looga faa'iideystay in khatar lagu geliyo amniga qaranka ee waddanka Iiraan iyadoo marinkaasi uunan qayb ka ahayn biyaha caalamiga ah oo dhowr goor lagu andacooday waxaana uu yahay baa leeyahay biyo ay wadaagaan wadamada Iiraan iyo Cumaan labadaasi dal ayaa xaq qaanuuni ah u leh in ay shuruudo ku soo rogaan sida habsamida ee loo marayo biyo mareenkaasi sida khabiirka hadalku uu sheegay waxaana daboolka laga qaaday in wada xaajoodada socda ay yihiin kuwo labada dhinac ay soo saari doonaan xeerarkii lagu maareyn lahaa intaan lagu dhawaaqin intaan la gaarin waqtiga kama dambaysta ee 60 maalmooda ee lagu xusay heshiiska hordhaca ah ee isfahamka ah waa gartay waaya aan u imaano markan xogayaha amuuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa safar ku marayay wadamada khaliijka laakiin arrinta la isweydiinaya Maxamed waxay tahay dagaalkan ceebtii uu keenay waxay noqotay wadamada khaliijka oo lacag far badan ku bixin jiray saldhigyada Mareykanka oo ay u haysteen inay ilaalo ka yihiin ayaa waxay ku noqdeen cibaaro ku noqday oo ayagii baaba loo soo tuuba raacay oo gacan kuga bad ay noqdeen loo soo weeraray niyaddu u dhisay baa leeyahay Rubio wadamada khaliijka arrinkaasi baa hadda inooga waran xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Rubio ayaa isku dayay inuu kala dhiciyo wadamada gacanka in Mareykanku ay weli ka go'an tahay inuu saaxiibkood yahay hase ahaatee dagaalkii Israa'iil iyo Mareykanka ay Iiraan ku qaadeen ayaa muujiyay in militariga Mareykanka nidaamkiisa difaaca oo iska difaaci waayay gantaalo iyo diyaarado drones oo raqiisa sidoo hadalka u dhigayo Patrick Barry oo ah nin khabiir ku ah arrimaha difaaca iyo amniga kana tirsan jaamacadda Bath ee dalka Britain waxay la tahay buu leeyahay hogaamiye kasta oo gacanka jooga in haddii ciidan iyo hub la sameysanayo in asaga ku amarku qaadanaya inay hawsha qabtaan halkii isaga halayn lahaa Mareykanka sidii hore u dhici jirtay Iiraan ayaa diyaarado drones iyo gantaalo dagaalka kaashatay waxaana muuqata buu leeyahay sida hadalka loo dhigay in militariga Mareykanka gacanka oo dhan la beegsaday taasoo dhalisay cambaareyn aad u weyn oo iyo wajiga waxnimo Mareykanka ku keentay waa gartay marka haddaynu Maxamed intaa kaga gudubno sheekadan isla qodobka intayna ka bixin wadamadan marka maxaa xal u ah marka ila way arkaan inuu Mareykanka difaaci waayay inkastoo qodob ka mid ah qodobada lagu heshiiyay oo dhigayo Iiraan in aageeda laga fogeeyo ciidamada Mareykanka ama iskaga baxaan maxaa kaloo markaasi wadamada Professor Meshamer ayaa waxa uu leeyahay dowladda Mareykanku ay yeelaysaa waxay ahayd muddo dheer waddanka xeerarka caalamiga ah iyo saaxiibadooda la shaqayntooda in ay ayada danteeda u eegato hadda waxaa muuqata dalowga ay ka dhacday in aynan siyaasad ku soo celin karin dhinaca kalena waxaa cambaareyn weyn loo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo la yiri hadallada uu sheegayo iyo ragga uu la kulmayo oo Iiraan u qaabilsan wada hadallada oo Abbas Araghchi ka mid yahay oo ah nin khabiir ah oo 30 sano diblomaasi ahaa iyo nin aanan kala garanayn erayada la kaashado marka ay timaado wada xaajoodyada inay ahayn laba nin oo isu dhigma Rubio ayaa la sheegay in uu yiri Iiraan wada xaajoodka waxaad moodaa in caqiido shiicanimo lagu hagayo oo dad wada hadal lala geli kara maaha dhanka kale waxaa la leeyahay asaga ayaanan ahayn ninkii munaasabka ahaa oo wada xaajoodka la geli lahaa dagaalkiina waa ku guuldareysteen wayna la qilaayeen inay dagaal ku guuldareysteen wadamada carabta dareen xoog leh ayaa galay waxay arkeen in wax soo saarkoodii iyo noloshooda meesha ku tirsaneed oo shidaalka ahaa inay khatar ku jirto joogitaanka Mareykanka awgiis Iiraanna si cad ayay ugu sheegtay horena digniin ayay u bixisay u sheegtay Ali Larijani intaan la dilin ayuu kormeer ku maray booqasho ku maray wadamadaasi oo digniin u jeediyay Ali Larijani wuxuu sheegay ayaa run noqday fikradii ay qabeen wadamada gacanka ee la xiriiray Mareykanka iyo sirtii ay qarinayeen oo ah in wadankooda laga duulayo ayaa waxay ku noqotay arrin culus haddana waxaa moodaa
in ay soo taagan yihiin oo ay leeyihiin khasaare intii hore ayaa noogu filan shidaalkeenne 4 bilood ku dhawaad waddanka kama dhoofin waddankii wax walba maraakiibtii dibadaha nooga imaan lahaa nolosheena ay ku tiirsanayd weli looma ogola inay meesha kasoo maraan marinka soo maraan waxaa intaa dheer in ay jirto culays ah in wadamada gacanka ay noqon doonaan kuwa aan lagu noolaan karin haddii la beegsado goobaha biyaha badda looga nadiifiyo waxaad moodaa sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan wadamada gacanka inay soo baraarugeen waxaa kaloo socda olole Saudi Arabia Pakistan iyo Turkiga iyo Masar ay riixayaan oo ah isxulafaysi cusub oo la rabo in lagu maareeyo amniga gobolka bariga dhexe maadaama Iiraan xuduudeeda la arkay ayagana hadda ayay xaydxaydanayaan sida hadalka loo dhigay waa gartay waaya bal markan aan eegno wasiirkan ka tirsan xukuumadda Netanyahu ee digniinta u jeedinaya Mareykanka dowladda Mareykanka dhawaan ayay ogaan doontaa buu yiri in ay naga hor imaan doonto ama Israa'iil ay ka hor imaan doonto sabab la xiriira heshiiskan ay Iiraan la galayso sidaana waxaa hadalka u dhigay wasiirka dhaqanka iyo sportiska ee Israa'iil Miki Zohar oo cambaareynaya sida ay dowladda Mareykanka oo la tacaamulayso wada hadallada waddanka Iiraan waxa uu yiri dowladda Mareykanka xaaladan lagu jiro marka la fiiriyo arrimaha Iiraan iyo sida ay ula tacaamulayso si wanaagsan maaha wax badan kama ay fahamsana sida arrimahan loola tacaamulayo Zohar waxa uu soo xiganayaa wargeyska Israa'iil ka soo baxay Nyet la yiraahdo waxa uu leeyahay Mareykanku dhawaan ayuu ogaanayaa iyo Israa'iil inay isku dhici doonaan mustaqbalka dhow jawaabteena waxay noqon doontaa Mareykanku in hawsha uu wada aan la dhacsanayn arrimaha danaha amnigeennana waxaa jeedin doona ama garwadeen ka noqon doona tallaabooyinkeena military Zohar ayaa sidoo kale sheegay in shaki weyn oo ka muujinayo inuu waxtar leeyahay isfahamkan Iiraan iyo Mareykanka ay gaareen oo laga golayaan dagaalka uga soo afjaro heshiiska Mareykanka ayuu ku tilmaamay ra'yigiisa in uunan arrinta nuclearka ee waddanka Iiraan uuna xallin karina weji kale oo dagaal ah ayaa soo noqonaya in ka degdeg badan sida ay dadka la tahay waa sidoo hadalka u dhigay hadalladan ayaa imaanaya iyadoo aad loo cambaareynayo madaxweynaha Mareykanka waddanka Israa'iil oo dhan waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawadaya si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh